السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصدوا هذا channel كعشاء عجنة. صدوا. وما صنتها أصحابها إذن كانوا وإذن سلامي مدام سلامت فرحان علي وبالله وحين ذلي هاي كلهم تو عني مقال عصب وقروح بدن سدان إذن شيء وchannel كي عشاء عجنة مروا البوحي إذا لتي عشاء واحتركي وناجع waxaan markaa channelkeena aynu maanta ku soo bandhigi doonaa muuqaal qurux badan oo aynu uga hadlayno arin aad muhiim u ah Farxaan Cali oo dad garanaysan ayaa barnaamijka nabarti ku ah wuxuu ku saabsan yahay muuqaalka la soo duubay ee YouTube-ka maxaa ka dambeeyo yani waxaad aragtay muuqaal qurux badan kana kamid hadda aan duubayno YouTube-kaas ku arki doontaa laakiin dadku waxay isleeyihiin muuqaalkan waa la soo duubay YouTube-ka la soo dhigay laakiin maxaa laga soo maray Farxaan haye soo dhawo muuqaalka su'aasha ma igu bilaabmaysan muuqaalka qabo muuqaalku horta ka hor inta YouTube la soo dhigin waa in marka hore fikradii ay soo maaxato aad iyo aad fikradii inta badan waxay ka soo maaxataa script writer qofka script qoro mise sheekada dejiyo aad iyo aad marka script writer waxa uu marka hore scriptka intuu dejinin uu qoondeeyaa fikradaasi goobta lagu jil lahaa dadka jil lahaa cidi ka soo muuqan lahayd waxaas kulli fikradda markii la dejiyo kadib ayaa muuqaalka imaana muuqaalka waxaa ku goowataa intaas qof director editor producer ma garata laakiin Soomaali ahaan waxaas shaqadaas oo dhan hal qof soo qabta waa gartay marka hadda waxaan ka bilaabeynaa maada waqti hadda ugu dambeeyay hadda anaga YouTube hadda leedahay anaga YouTube-kayga leeyahay qof walba YouTube oo sameystay waa sida beecsharo oo kale to yani business-ka ku wada jira dirtaan adduunka hadda waxa leeyahay media wuxuu u wareegayaa dhanka YouTube-ka oo kale sax digital yani benefit-ka waxa ku jira waa la wada ogyahay qof walba qaabka uu shaqeeyo ku xiran tahay Soomaali ahaanteena ma nahnay dad u qaabaysan qaabka ay u dejisan tahay jadwalka oo hadda saa sheegto kale in script-ka qof uu qoro qof uu barnaamijyada kala waxeeyo wixii la hagaajiyo muuqaalka la duubo barnaamijyadaas oo kale dad leh ma nahnay sax Soomaalida marka la eego da'yarta waatahay Farxaan haye gaariyan ka soo wareegnay waatahay ummadda Soomaaliyeed ee markaas isku taxloojisa arrimaha YouTube iyo content creation-ka inta badan xoogga ma sii saaraan sida qowmiyadaha kale ay u dejiyaan sheekada riwaayadaha Soomaalida inta badan afka la iska sheega adaa jili adaa paadkan qaadan adaa san saasay inta badan ku kacdaa teeda kale YouTube-ka dad iskar mooshiye inta badan sidaas un bay u dhaqmaan xitaa qowmiyadaha kale because YouTube-ka waxa la rabaa activeness maalin walba in cusub wax la soo soo bandhigo toddobaadkii laga yaabo qof inuu ku xisaabtamo inuu 3 jeer mise 2 jeer uu soo bandhigo wax aad iyo aad marka ma u saamaxayso qofku inuu script qoro oo location-ki u qalmayso uu raadiyo actors-ki u qalmayo fikradan si fiican oo soo bixi lahaa inuu raadiyo waqtiga saamaxayn waqtiga ciriirku ah wixina inuu buufsado wixina waxa la rabaa YouTube-ka ina ila galiyo toddobaadkii ina 2 xabo 3 xabo 4 xabo ku tuurto ma gartay marka update-ina la rabaa badan inuu wax badan la marka update-kaas ay to ma saamaxayo qofka inuu script u dejiyo inuu location fiican oo u qalmanto fikradaas inuu raadiyo director inuu producer wax dhan inay isku malo waqtiga saamaxayn waa gartay marka yani anaga waxa rabnaa barnaamijkan oo kale waxaan ka dhigi rabaa adigu waxa qof YouTuber oo YouTube-ka ku jiro YouTube-leyda kamida waxaan khibrad badan ka haysataa waxyaabo badan aad yani ku fikirtaa adi ahaantaado kale jadwalkaaga si u maareysa anagoon ku dheheen jadwalkaaga gudaha u gal laakiin waxa koowaad markaad muuqaal sameynayso oo ku qorshaysan muxuu yahay muuqaalku horta waxa muhiim ah haduusan muuqaalka riwaayad ahayn muuqaalku haduu riwaayad ahayn inta badan had maalmahan dambeana waxaan u go'ay riwaayadaha oo af Soomaaliya ku soo bandhigno muuqaalku waxa muhiim ah mar walba fikradda hadii la helo waa lagu dhaqaaqaa xitaa ha ahaato shalay inaad wax gelisay inaad daraad wax gelisay xitaa ha ahaato waa la gelinayaa waa inaad fikraddi aad ku dhaqaaqdo aad duubto aad rabto in fikraddi hore aad gelisay muuqaalka hore aad gelisay inuu yar durqo views-ka u yar bato waa iska sii haynimidan ma garatay 3 maalin mise 4 maalin marka soo wareegto yaa soo gelinay muuqaalada marka waxaan sameynaa inaan isku dheelitirno waqtigu kan ku sii jiray 3 maalin inay ka soo wareegto amal si views-kiisu u baahnaa uu helo soo qabsado dadkana u arkaan inta badan suuq u galo kadib saddex bari kadib ina soo bandhigto adana muuqaalka kale aad duubta markaas fikradaas dadkeena Soomaalida ah ee hadda YouTube-ka u badan oo kale ee sameynaya riwaayadaha barnaamijyada maxaad yani fikrad oo aad ku darsan lahayd ka qaldana isleeyahay inay iska dhisaan oo kale runtii qof walba fikradiisa uu
sax ayuu ku yahay laakiin ani ahaan content creator markaan isdho waxa fiicnaan lahayd in Soomaali ahaan dadka jila riwaayadaha siiba barnaamijyada kale iska dhaaf reaction-ka iyo challenge-ka iyo waraysiyaadka iyo barnaamijyadan kale iska dhaaf laakiin dhinaca riwaayadaha waxa fiicnaan lahayd in ani ahaan sidaan qabo waxa fiicnaan lahayd inaan la wada fariisto script la dejiyo markuu filimkan uu soo baxo uu noqdo wax macaan oo dhadhan riwaayadan sida waxaa jiray ramadaanka oo kale waxaa jiray barnaamijka Universal ay soo daanayeen maalin walba soo baxaya Cabdiqani isku filan uu ku jiro barnaamijka magaciisu muxuu ahaa sheekadii gabadha baadiyaha la geenay sida Universal ayaa duubtay qotqota ma ramadaanka u dambeeyay wacdi iyo waano miyuu ahaa barnaamij khatar ayuu waqti la galiyo fikradaas ay aad ay u cajabsanayd sidaas oo kale ayaa fiican marka in waqti loo galiyo barnaamijka kaamirooyinka lagu duwayo ee badato waxa dhan isku dheelitiran marka qofka dhalinyarada ah ee YouTube kale aad aragtay cadaasiyada faraha badan ee Nairobi ka jira heesto oo kale waxaas oo kale miyuu yani ka bixi karaa soo fudeed ka dhiganaya inuu yani script la'aan iyo fikir la'aan oo barnaamij iska galo oo wixii riwaayadiis oo iska wato oo kale maxay u keenaysaa ma views-ka ku yareynaysaa ma dib u dhic u keenaysaa bal ka warantaa waxa muhiim ah horta in passion-ka oo ka xoog badnaado YouTuber-ka aad tahay mar haddii aad leedahay waxaan rabaa riwaayada iyo waxyaabahaas inaan jilo aan duubo iyo aad leedahay ha ka go'naato in actor-nimo mise script writer mise producer mise director ee taho shayga kugu weyn ee ahaan YouTube ma garatay waan soo gabagabeynaa gabagabadii hadda ku jirnaa dadka waxyaabo badan ka sheekeysay oo muuqaalka aan daawan muuqaalada yani daawadaan bas le raaxo ku daawadaan marka maxay tahay culayska ugu badan oo aad ka martaan muuqaalada aad daawadayaashin ugu gudbisaan adiga Farxaan Cali ahaan muuqaaladin dhibaatada aad ka martaan yani dadka ku daawanayo ma ka warqabaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee markaas muuqaalka inta la soo bandhigin qofka uu daawanayo si raaxo leh uu daawanayo dhibaatooyinka waaweyn ee caqabadahan waxa weeye goobta lagu jil lahaa oo waxay ku qaanay exactly wixii waafaqsanaa goobta lagu jil lahaa in raadiso way marar qaar Nairobi dhibaatooyin iska jiraan kanjooy iska jirta askar jirta in askartaas ay tooyo waxyaabahaas ay kaamirada lagu qabsaa aska arkay marka caqabada ugu weyn that's why inta badan aflaanta Soomaalida mise riwaayadaha guri iyo sariir iyo lagu jilaayo fadhi iyo inta badan banaanka loo bixin marka caqabadaas oo kala jiraan waxaa kale waxaa jiraan in gabdhaha Soomaaliyeed inta badan la helin oo ay u firfircooneen jiritaanka YouTube-ka sababtoo ah family iyo waxyaabo arrimahaas ka jiraan qoys iyo ma garatay waa mahadsantahay qaybtan barnaamijkan wuxuu ahaan doonaa qaybtii koowaad ee idin soo gudbinay maxaa ka dambeeya muuqaalada YouTube kala soo dhigo oo aan qof walba oo YouTube isticmaala aan soo gudbin doono muuqaalkiisa si uu uga warbixiyo muuqaalada uu dadka u gudbiyo waxyaabaha uu ka dareemo daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkii waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka aad daawateen haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka codsan lahaa inaad subscribe ku qabato haddii aad hore uga mid ahayn daawashada sii wad shayga sii wad like iyo comment-gana waa kugu qasab oo waxay kugu tahay inaad samayso sidaasi waana idin salaamaya dhamaantiin waa mahadsantihiin intaan muuqaal kala gulmi doono waa anigu Caaisha Caagana Farxaan Calina waxaan leeyahay sidoo kale subscribe channelku subscribe asxaabtana channelkaygana soo booqda Farxaan Cali wakuka